صلي النبي عليه الصلاة والسلام لغو صلينا أيوه فضائشة إيو أجرك أوليه هاي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كسو أرورتي صلي قاسنا إنا قيبا كتابتا ينشاء الله وهنكوار مريا محبة رسولك عليه الصلاة والسلام إنا دور كلمة كتلمامه وهنك آخرين إياه أدو إلهي قدر كتاب كان هدق عنتا أنكو هايستو بان دور ميلاد ودور حديثة وقري كسو قادنا إياه كتاب كان ودلائل الخيرات وحوكا هذا الله صلي النبي عليه الصلاة والسلام فضائشة إيو أجرك أوليه هاي قيب وكقراه قيبنا صلي يو الله آخرين هايو لغو وردين يا أيو كقراه وكتابك كتب تصلي لغا آخرستو كوا وقترسن كامده وحا قري شريف وين الله كرال لنقده وآد يآد dadkii diinta islaamka ugu soo halgamay haday jihaadkii la jihaadayo gaalada la jihaadiyay ay tahay iyo haday daraaso la daraasaynayo dadka la barayo ay tahay iyo haday irshaadintii kale culimada suufiyada ay yaqaaneen ay tahay dhan walbaaba sheekhaas diinta waa uga soo dadaalay taariikhdiisu way dheer tahay laakiin waxaad kaliya ka garan kartaa adduunka markuu ka tagay inuu kaga tagay 12,566 hogaamiye ama intaas inuu dhow oo kale inuu adduunka uga tagay baa kugu filan oo diinta islaamka dadka hogaamiyo oo daafaha caalamka ku fidinaya oo diinta islaamka difaacaya waxa lagu xasuustaa sheekha kitaabka qoray oo hadhow ahadiista uu noo tilmaami doono aan wax ka sheegi doono asaga oo 76 sano adduunka ka sii maqan oo qabri ku jira yaa qabrigiisii waxa la yahay laga qaado oo meel kale hala geeyo markii qabrigii la qoday sheekhi oo hadda naftana ka dhacday amoodaa loo tagay oo sidii markii nafta ka dhacaysay dadkii xaadiriinta qaar kamid ah ayaa sheekha wajiga saas gacanta uga soo saaray saa u soo koobay sidii qof nool oo kale baa dhiigii saa u soo guntamay gacantii uu ka sii daayay dhiigii waa laabto waxay ku tusinaysaa midii caqiidada aan ku akhrisanaynayo hadda quraanka iyo xadiistu way noo sheegeen oo dadka culimada iyo caamiliinta inay qabriga ku nool yihiin aan ciid cunayn shuhaadadu inay nool yihiin oo aan ciid cunayntii bay ku tusinaysaa sheekhaas waxa lagu xasuustaa qabrigiisa ilaa hadda marka culimadu ka taariikhaynayaan salligii nabiga oo badnaaya uu qoray oo akhrin jiray sababkeedii udgoon aan caadi ahayn baa qabrigiisa ka soo baxaa la yiri sheekha markuu xadiista faraha badan qorayay dhowr xadiis oo maxabada rasuulka ku saabsan calayhi salaatu wasalaam ayuu soo qaaday intaan horta xadiiska u gudbin aayadii aan ku furfuranay waxay ka hadlaysay ilaahay inuu yiri haday aabayaashiin iyo wiilashiina iyo walaalihiin iyo xaasaska aad qabtaan iyo qaraabada iyo cashiiradiina iyo maalyaal aad kasbanaysaan iyo tijaarooyin aad ka baqaysaan inaad ka badeeca dhacaan intaasi haddaad ka jeclaateen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaad fii sabiilillaahi lagu jihaado ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaadkii baad inta ka jeensateen baad intaan jeclaateen markaasaa meesha jihaadka ka aadi lahaydeen meesha ka hijroon lahaydeen oo daarul kufriga laga hijroon lahaa yaad waxaad jeclaateen dadkiinaas iyo xoolayaalkiina iyo maaliyaalkiina jeclaateen haddaad sidaa yeesheen iska sogtaaliya wax idinku dhacay ilaa amar ilaahay ka yimaado فاسقين بان لغو تلمامو آيات إلهي وحكو سي شيغا والله لا يهدي القوم الفاسقين قفكي مركب محبة الرسول كالغوايا عليه الصلاة والسلام آيات وحي عدين سا فاسق إنو يهي وحالة دي سويلة أيسن سهلنين sidoo kale axaadiituna waxay cadaynaysaa qofkii laga waayo jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in qofka asaga iimaankiisu uusan dhammaystirnayn xadiidkan anas ibnu maalik ayaa laga warinaya allah ka raadli noqdee wuxuu leeyahay anas qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayh min waalidihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin لا يؤمن أحدكم بي رسولك عليه الصلاة والسلام قف أذنك كمذا إله مر رمينين هذا وقال لك وضع لكن إيمان لما يسترن لك بهلين حتى أكون أحب إليه من نفسه
وماله وولده ووالده والناس أجمعين إلى أنو أنك هذا مثل لو كالكعيل بدن يهي أو وحكست أو كتشعل يهي أنك هذا نفتيسا مالكيسا ولدك ودلي والدك أساق دلي إيادتك ودن intaas ba ilaa oo aniga iga jeclaadu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iimaan laga helin qofkaas sayyid umar ayaa hadlay baa la yiri markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayow anta ahabbu ilayya ya rasuulallah buu yiri rasuulka ilaahayow anigu adigan ka jeclaa min kulli shay wax walba illa nafsiya allati bayna janbayya naftayda laba dhinac igu jidha naftayda waan jeclahay yiri laakiin wixii naftayda ka soo haray adiga ayaan ka jeclahay buu rasuulka ilaahayow فقال عليه الصلاة والسلام نبي وحو جواب لا تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك من نفسك إلى نفت هذا من لغة عليا أن نقضه والنفت هذا أنا أي تعلاته إيمان كاغوح لي كامل ماها مركاسو سيد عمر هذا الكعلي وحيري والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي من نفسي التي بين جنبي معبودك كتابك قرآنك كوكو سودتيان كل دارتيه نفتا لبدا إذا ترتركوش ده يا أديك بهذا الكعلي هاي بيجري مركز النبي عليه الصلاة والسلام يقول الآن يا عمر تم إيمانك هذا هم بإيمانك ولما يسترين هاي مركز عائلك رسولك عليه الصلاة والسلام وحلوه لي قفك إنه إيمان لما يسترين يش قفك رسولك أن شعلينا وحويان iimaankiisa nusqaan baa ku jirta waxa la weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam mata akunu mu'minan riwaayooyinka qaarna waxa qorayaan mu'minan saadiqan goormaan mu'min ahaanaya ama goormaan mu'min run law ahaanaya mu'min run goorma ahaanaya mu'min sax goormaan noqonaya markaabuu nabigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam إذا أحببت الله مركز إلهي تعلاته بعد مؤمن ربعتها مركزها وحال يري قرمان ومتى أحب الله ومتى أحب الله قرمان إله تعلانا يا قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحببت رسوله وهذا إله تعلانا يساه مركز رسولك ستعلات عليه الصلاة والسلام مركزها سؤال للسيوة وحال يري قرمان رسول كان تعلانا يا ومتى أحب رسوله رسولك سنة قرمان تعلانا يا قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام إذا اتبعت طريقته واستعملت سنته وأحببت بحبه وأبغلت ببغضه وواليت بولايته وعاديت بعداوته مركا طريقي ستراعده سنة سكون لقنته أساق سبب كسوحو تعلاته أساق سبب كسوحو نعضه عدي رسولك جعلي هاي أو وضي رسولك هاي ساعة جعلان عدي نبي عن جعلين أو وضقل دن هاي ساعة دينتو هذا أنا وضقل دن هاي ستلمانتينا وهذا نعيسى عدي رسولك حريريات حريرين عدو وحويان لا الله يتنتين ولا الله يتمن مركز أياد رسولك جعلاتي باليري مركز رسولك جعلاتنا إلهي بات جعلاتي مركز إلهي جعلاتا مؤمن رون نقنيسا جعلك إلهينا محوك حرية جعلك رسولك عليه الصلاة والسلام جعلك رسولكنا وأمرك وددي سراعده سندي سكون دقنته أساق سببك سوحكو جعلاته سببك سوحكو نعده عدو أسوي حريرية حريسد عدو الله عليه تنتهي الله عليه تنتهي وسيوة حديث كيو ويتفاوت الناس في الإيمان على قدر تفاوتهم في محبتي ويتفاوتون في الكفر على قدر تفاوتهم في بغض النبي عليه الصلاة والسلام dadku way kala tagtagsan yihiin oo isku heer ma joogo waxay ku kala tagsan yihiin xagga iimaanka dadku waa kala iimaan badan yihiin sayyidina abubakar siddiq iimaankiisa ahlu ardada dhan hadii meel la saaro iimaankooda sida abubakar siddiqna meel la saaro sida abubakar siddiq baa rajaxna allah Soomaa sidaas marka iimaanka loogu kala sareeyaa dadka marka iimaankooda waxay ku kala tagsan yihiin jacaylka ay aniga maxabadayda laga helay jacaylkayga laga helay qofkii rasuulka in yar jecel iimaankiisu waa yarya qofkii nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan jecelna iimaan badan ayuu leeyahay gaalnimadana waa sidoo kale carada nabiga ku xirantaa qofkii nabiga xoogaa u caraysan gaalnimadiisu way ka sokaysaa kan carada nabiga u dhimanaya mid cara nabiga u dhimanaya oo nabiga iyo wixii nabiga sheegto islaam oo dhanba inuu madaxa ka jara jeclaan lahaa
kaa gaalnimadiisu waxaa ka hoosaysa qofka xoogaa caradiisu intaa ay ka yartahay oo nebigu u qabo soo arrintii marka kuwa xirnaanin iimaankii jacaylka rasuulka xadiidku wuu sii wadayoo nebigu wuxuu yidhi alaa laa iimaana liman laa maxabbata lah alaa laa iimaana liman laa maxabbata lah alaa laa iimaana liman laa maxabbata lah 3 jeer nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam warray qofaan jacayl laga helin iimaan lagama helin war qofaan jacaylka rasuulka laga helin iimaan lagama helin qofkaan jacaylka rasuulka laga helin calayhi salaatu wasalaam iimaan lagama helin taas marka maanta oo dhan haddii la wada ma dhammaanayso inaan iska soo gaabiyo ayaa aad iyo aad u roon jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo baahan yahay marka saad arkaysaan maadaama iimaanku ku xidhan yahay oo jacaylka ilaahay kaaga xidhan yahay in aad waxyaalaha jacaylka rasuulka keenahaya aad badsato aad isticmaasho ilmaha la baro guryaha waxa weeyaan asbaabta nebiga lagu jeclaada looga sheekeeyo waxay kutubtu noo qorayaan waxyaalaha jacaylka rasuulka keena waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam dadka sidaanoo kale nebiga u sheegaya in lala joogo xafladaha saanoo kale in laga qayb galo dadka salawaadka nebiga qaadaya calayhi salaatu wasalaam oo weliba codad macaan ku qaadahaya dadka ayagaa in la dhex galo waxay keenaysaa qalbigaaga ayay jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku beeraysaa wakhtigoo gaaban awgiis labadaa xadiid waa inugu filan tahan rajaynayaa xagga salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan u gudbo hal xadiid aan kaga soo gaabsado haddaan mid kale ku darana waa arki doonaa waxaa nebiga la weyddiiyey su'aashaasoo ah rasuulka ilaahayow baa la yidhi dadka adiga kugu sallinaya ayagoo kaa maqan hadda ayagoo kaa maqan bay kugu sallinayaan maye markaad adduunka ka tagta kadib dad imaanaya ayaa kugu sallinaya dadkaas ka warran baa la yidhi ayagoo hadda aysan kula joogin bay kugu soo sallinayaan ama maye markaad adduunkaba ilaahay kaa oofsada kadib dadka imaanaya sida naanoo kale dib baan ka nimid ilaane dadkaas adiga kugu soo sallinaya xaalkooda ka warran baa la yidhi rasuulka ilaahayow salaadooda ma ka warqabtaa ma maqlaysaa arrintaa ka warbixi baa layidhi wuxuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam asmacu salaata ahli maxabbatii wa acrifuhum wa tucradu calaya salaatu hayrihim cardaa kuwa jacaylkayga ahalka u ah salligooda anaaba dhegaysanaya waana garanayaa buu yidhi kuwa kalena salligooda waa lay soo bandhigayaa marka salliga nebiga waxaad ku heshay in waxa weeyaan mar walba nebiga loo geynayo ama si toosa nebiga ha kuu garto ha kaaga radiyo ama waxa weeyaan malaa'ig ha u geysee waxaa kale hal xadiidoo kale aan ku darinaa wada taqaanaan waxaa nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi man sallaa calaya marratan waaxida salla allaahu calayhi 10 marraat kan waa iska wada taqaanaan inta badan qofkii hal mar aniga igu salliya 10 jeeraa ilaahay u naxariisanayaa waman sallaa calaya 10 marraatin qofkii 10 jeer aniga igu salliyana salla allaahu calayhi 100 marra 100 naxariisood baa ilaah siinayaa waman sallaa calaya 100 marra 100 jeer qofkii aniga igu salliyana salla allaahu calayhi 1000 marra 1,000 jeer baa isaga ilaah u naxariisanayaa waman sallaa calaya 1000 marra qofkii 1,000 jeer aniga igu salliyana xarama allaahu jasadahu cala annaar jirkiisa horta ilaahay naar waa ka xarrimaya wa habbatahu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira cinda almas'ala markii su'aali timaaddo xagga adduunyada isagoo jooga hadday su'aali timaaddo ilaahay meesha sawaabkaabuu ku aadinayaa xagga aakhiroo qabrigii iyo qiyaamihii su'aalihii ahaana jawaabta saxda ayuu ku badbaadaya ilaahay waafajinayaa wa adkhalahu aljanna ilaahayna jannada ayuu gelinayaa wa jaa'at salawaatuhu calaya nuuran lahu yowma alqiyaama cala asiraadi masiirata 500 caam salaaddii ani igu soo sallin jiray maalinka qiyaamay imaanaysaa salliyaalkii ayagoo nuur ah jidka siraad bay nuur ku yihiin weliba 500 oo sano meel loo socdo kale ugu imaanaysaa ilaahayna wuxuu siinayaa salaad walba oo aniga igu salliyo wa acdaahu llaahu bikulli salaatin sallaaha calaya qasran fi ljanna qalla daalika aw aktar salli kasta oo aniga igu salliyey ilaahay qasri weyn ayuu jannada ooga dhisayaa salliga nebiga asagoo faa'iidadaa leh yaan lagugu dirin ha laga faa'iidaysto markii nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam sidaan tusbaxa aad ugu akhrisanaysa nebiga waa loogu salliyaa sidaan hadda isla qaadaynay hadda xertu ay qaadayeen
oo la qaadahayana waa loogu salliyaa nasri iyo nadmi labadaba nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loogu salliyaa siiqooyinkana siiqadaa doontaana waa ugu sallin kadhaa laakiin hadda way kala fadli badan yihiinoo salliga ibraahimiyada ayaa u fadli badan siiqooyinka waa tiluu odhan jiray kuwa ugu fadli badan ka mid ah qaybtaasna waxaa nooga gudbayaa salliga ayaa nooga gudbayaa qaybta saddexaad mawlidkan oo kale waxyaalihii culimmadu ka yidhaahdeen baan wax yar ka taabanayaa waxaa weeye jacaylka nebiga loo qabo ayaa keenaysa mawliidkan oo kale iyo laiskugu yimaada xafladdan oo kale jacaylkaas marka faa'iidada uu leeyahay ayaan jecla wax yar inaan ka tusno waxaad og tihiinoo qisadan abiilahab markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhashay oo loo soo bishaareeyoo la yidhi wiil walaalkaagii dhintay wiil baa u dhashay waatuu isku daray laba arrin gabadhii Thuwayba ahayd oo u soo bishaaraysay horta wuu xoreeyey farxaddii daraaddeed maadaama walaalkii dhintay ilmo uurku har ahaayo wax kalena awal uusa ka tegin ilaa cabdullaahi ibnu cabdulmudallib wax kale kama tegine ilmo uu caloosha ku jiro walaalkii ka dhintay markii la yidhi waa wiil aad ayuu u farxay wuxuu kaloo sameeyey gabadhiina wuxuu yidhi orod nuuji marka farxadduu farxay sababkeedii ayuu laba arrin isku darayoo wuxuu yidhi orod nuuji waana ku xoreeye abulahab oo qur'aanka ay ku soo degay caydiisa yaa arrintaas sababkeeda wuxuu ku helay maalinka qiyaame wuxuu ku helay dhannaarta dhexdeeda cadaabka in looga fududeeyo maalin kastoo isniin ah maadaama uu sidaa ku helay dadkan xafladaha iyo mawliidka iskugu imaanaya oo mu'miniinta ah oo weligood intay nool yihiin ilaahay waxidahaya oo nabigooda jecel calayhi salaatu wasalaam maxaa u malaynaysaa wax kale ma lahan baa la yidhi ilaa jannu ilaahay siinayaa taa horta waa middaas su'aal baa la weydiiyey baa la yidhi xaafidkii la odhan jiray xaafid suyuudi kitaabkaana haysta waa caanu daalimiin xerta way wada garanayaan waxaan kitaabta u soo qabsanayaa haddee oo waxaad sheegaysa inay kitaab ku yaallaan baa aad u fiican oo qof walba uu arkaya kitaab in laga akhrinayo su'aal ayaa la weydiiyey shiikha la yidhahda xaafid suyuudi waxaa la yidhi mawliidka ka warran weliimada iyo allabariga xoolaha la qalqalayo mawliidka loo qalqalaya ka warran baa la yidhi wuxuu yidhiyo arrinta ayadaa dadku inay kulmaan oo mawliid iskugu yimaadaan wixii u fududaado qur'aana inay akhriyaan axaadiista nebiga in laysku wariyo haddaba soo axaadiis maana akhrin iskumaanaan sheegin sidaa in la yeelo axaadiista nebiga laisku sheegay calayhi salaatu wasalaam arrinta ayadaa wuxuu waa arrin wanaagsan waxayna tusinaysaa buu yidhi qofka arrintaas samaynaya qalbigiisa in nebigu derajo saree ka joogo maxaa yeelay farxadda uu muujinayo iyo bishaarada uu ku bishaaraysanayo dhalashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa waxay ku tusinaysaa qalbigiisa in nebigu ku wen yahay dhinac kale haddii laga fiiriyana masaakiinta in la quudiyo waxyaalaha jannada lagu galay ka mid taha masaakiin quudin iyo sadaqa bixinna meesha way ku jirtaa sheekh la yidhaahdo abushaama xaafid weyno abushaama la yidhaahdo laakiin waxaad ku garan kadhaa shaykhul imaamu nawowi baa layidhi imaamu nawowi bay dadku inta badan yaqaanaan sheikhii arbaciinka iyo minhaajka iyo riyaad saalixiinka iyo noo qoray shiikhaasaa la wada garanayaa shiikhaas shiikhiisi weeyaan marka wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayey waxyaalaha maalinka nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam maalinka ku aadan la sameeyo mawliidka ah wuxuu yidhi sadaqooyinka la bixinayo macruufka iyo wanaagga lays amrayo quruxda la muujinayo iyo farxadda bal waxa wajiyaalkaa fiiri say loo labisan yahay say ilmuhu hadda qurxoon yihiin iyo dad culammadu si u qurxoon yihiin fiiri quruxdaas la muujinayo meel kasta xitaa waa la xirxiraya meesha wala saa u qurxoonayn hadda la qurxiyey quruxdaas iyo waxa la muujinayo waxay dareensiinaysaa buu yidhi jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qalbigooda ku weyn iyo weynaynta nebiga ay u hayaan iyo nicmada ilaahay uu siiyey oo inuu ilaahay rasuul u soo saaro rasuul u soo diray raxmad makhluuq oo dhan u ah inay nicmadaas ilaahay kaga shukrinayaan ayay tusinaysaa buu yidhi halkaasna waxaan ka jeclaa hal kelimaan ku soo khatimin waxay culammada qaarkood yidhaahdeen sheekh weyn oo xaafid ibnu jawsi inuu ahaa baan rajaynayaa
ibnuljawsi wuxuu yidhi khawaasta mawliidka waxaa ka mid a oo asagu khaaska la yahay annahu amaanun fii daalika alcaam wa bushraa caajila binayli albuqyati walmaramb waxyaalaha mawliidka rasuulka lagu yaqaan calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid yidhi oo khaas la yahay horta nabadgelyaa lagu helaa markii mawliidka la dhigo waxaa kaloo lagu yaqaanaa buu yidhi bishaare caajilaah oo wixii la rabay lagu helo waxaan indheheenna saarnay mar kastoo la yidhahda mawlid hala dhigo ilaahay roob buu keenaa inta badan ilaahay mawlid roob buu keenaa hadda xifladdan gelinka horaa la qaban rabe roob baa lala qaban waaye shalay waxay soo wacaysa qolo mawlid dhigtay oo roob markiiba u yimid weligayana saasaan u arkayna mawlid kastoo aan dabcan inaan dhigno ama waxaan roob baa na qaban jiray ama wakhti dhow buu na qaban jiray marmar way iska dhacdaa laakiin sida la yaqaan waaba la tajribeeyo waa la arkay nabadgelyo iyo roob iyo wax walba waa lagu helayaa intaasi waa midda kuu muuqatee midda aan kuu muuqan oo qalbigaa maxaa u malaynaysaa wax weyn baa lagu helayaa ilaahay baana soo waafajiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof walbow yaan lagu nacsiinine intii karaankaa ah inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa allaale waxaad ku weynayn kadho aad ku weynayso ayaa kuu fiican intaasaan ku gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu